wasaaradda dastuurka Soomaaliya ayaa maamulka gobolka Banaadir u qabatay kulan wada tashi ah oo lagu eegayay dib u eegista dastuurka waxaana ka qayb galay maamulka gobolka Banaadir heer gobol iyo heer degmo. agaasimaha wasaaradda dastuurka Maxamed Abuukar Zubeer ayaa sharaxaad ka bixiyay nuxurka kulanka. qorshaholeed geedi socodka dib u eegista dastuurka oo 2017 ilaa 2019 ah oo aad arki doontaan iyo doorka gobolka Banaadir uu ku yeelanayo inta ay ku guda jirno howlahan hadii aan leeyahay taas weeyaan kulamada noocan oo kala ah ma aha kaliya gobolka Banaadir inaan la yeelanay laakiin waxaan kala la soo sameynay dowlad goboleedyada qaar inay loo dhiman yihiin. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimadda Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineer Yarisow ayaa hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay matalaadda caasimadda ee dastuurka. sidoo kale qodob muhiim ah ku jiro halkan oo gobolka Banaadir aad u qorsheynay maqaamka Muqdisho waxaa la rabaa shacabka Soomaaliyeed in talada laga qayb geliyo taladooda la soo aruuriyay iyo noocyada jiri kara in taladaas iyada aan anagi gudbino wasaaradda dastuurka loo gudbiyo golaha wasiirada kadibna golaha shacabka iyo aqalka sare oo ayaga qodobka sagaalaad ee dastuurka uu siinayo inay awooddaas leeyihiin. xubnaha ka qayb galay kulanka dib u eegista dastuurka oo la tashi lagu sameynayay ayaa siyaasiyiinta iyo xubnaha maamulada degmooyinka gobolka Banaadir dib u eegista dastuurka ee la tashiga lagu sameynayay waxa ay goobta ku soo bandhigeen fikrado muhiim u ah dhamaystirka qabyo qoraalka dastuurka Soomaaliya. dastuurku waa jaban yahay haddaba mistake ugu weyn oo dastuurkan ku yaala oo mas'uul dawladeed oo ka hadla aanu jirin qodobka 54 wuxuu leeyahay 72 ma qaane aqalka sare waa in 18 gobol loo qaybiyo 54 waa inuu ahaado qodobkaas ma jaban yahay ma jabno waa jaban yahay qof mas'uul dawladeed oo hadda laftarka dastuurka la ilaaliyo waa jaban yahay dhaysan aan wali ma maqal مشكلة معها رأي مقدشة وحلقة ربعنا تلقات بدن موجيان وعاصمة وطنك ومقالة كلية الصومالية أجنبية وتتقينين أنتنا كليين مركا إني حقوق يالتو قف كستو ديغان كوه أي معنى الله ده غير قارة معها gobolkan Banaadir yaan gorgortan la jirin warax mudnaanta nasiya waxa dhahdaan dadka reer Banaadiriga ahaa ee xaq lahaa xaqooda hal la siiyo idinkaan laga rabo inaan loo doodaan mush inaa idinka dhahdaan waxay noqonay fiir caasimad ma diidan sax waa Soomaaliland uma diidan laakiin wala kala leeyahay. ugu dambeyn wasiirka wasaaradda dastuurka xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoos Jibriil ayaa dhankiisa sheegay in ay muhiim tahay inta aanan afti loo qaadin dastuurka in la helo aragtida Somaliland mar uu ka hadlayay arrimaha wada tashiga dastuurka Soomaaliya. meesha ugu dambaysa marka waxay noqonaysaa hadda ka hadlaa see loo ansixinayaa in haddii Somaliland ay timaadana in afti la geliyo hadduu security-ga noo ogolaanayo oo nabadna ogolaanayso because afti waxa waa election qof kasta Soomaaliya inuu codka geliyo amal waa haddii kale ila marsiyo golaha ansixina sidii 2012 Abdulaziz Ibrahim Ahmed TV Universal magaalada Muqdisho.